بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله waxay noo socda barnaamijyadeeni dhaxalgar Ramadaan waxa martii noo ah walaalkeen abwaankeena walaalkeen Yaxye Cabdi Cali Yeebaash جزاه الله خير kuntii codsi aan ka codsanay inuu barnaamijka naga qayb galo walaalku si wanaagsan oo sharaf iyo karaamo leh inoo soo dhaweeyay جزاه الله خير kuntii wax rag lagu amaanana واتيو مدنيد يولي أخلاقيا يتواضع إذا انتبه إلى وحنا كبر ميزان حسنات كعودرو كنت ما تروح تشعل على مدى أول كفصدقه هلي أبوه بالتاريخ هذا كوبان يعني كل شعلان لنا والله السيدة أنا دي أبوينين بأنا تاريخ دينوس أبوينين waxaan ku dhashay ku koray isla magaalada Hargeysa Afrika baan ku dhashay dugsigeygii hoose iyo dhexe iskuulka waxaan ka baxay Tomorrow la yiraahdo kaygii sarana Ilays baan ka baxay jaamacad caafimaad baan dhameeyay waxaan ahay dhakhtar sidoo kalena mihnadeedu waa caafimaad laakiin hiwaayadeyda iyo waxaan xiiseeyaa badanka waa suugaanta akhriska iyo inaan wax cabiro macna Soomaaliyeed ma labaad waan haysan ha jazakallahu khayr maanta maxaad noogu soo talagashay هذا بالبركة كل ها رمضان قبل برنامج دينيات أديات ولا لرتو واحد مهم ونتو ما كورين انتراب انت هوريس كنا رحنا سوغانتا يو دينتو هالكي إسكاب صلاة بدن كوا الله كلفوجيا يو مشايخ ذا يو علماء ذا يو وذا دنا كردات بالجليادين عبال لجو أوضاع هالبور كي أبوان كنا دين عبال لجو أوضاع لكن سيدا ما هينه حتى واجي النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الشعراء بولها ugaara oo nabiga amaanta gabayga ku difaacda nabiga kaleey salaatu wasalaam marka inaynu kuwii yeelanaa waxay lib u tahay oo guul ay u tahay diinta iyo fidinteeda iyo dacwadda inahaba marka waxaynu doonaynaa suugaanta in laga soo saaro meelaha xunxun iyo majlisyada xunxun ee ku jirto ay soo gasho majlisyada wanaagsan iyo masaajidda iyo meelaha lagu hayo dikriga iyo magaranaysaayay diinta lagu hayo nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam kolka walaalo suugaantu waa in suugaan noocaas noqotaa waxaana kamid ahay halabuurka isku dayay in suugaantiisu suugaan ehel u ah diinta inay noqoto inta ay noqon karayso qof inta ay noqon karayso taagteeda wuxuun baan maanta doonaynaa inaynu kulay dhextaal loo noqdo barnaamijkan inoo taxanaha ahaayay inoo socday maanso adoon la yiraahdo oo ka waramaysa tawaaduca ama waxa afka Soomaaliga isduldhiga lagu yiraahdo qofka bini aadanka ee adoonku inuu isduldhigo ilaahiisa isduldhigo tamartiisa ogaado qof markastuu tamartiisa ogaado waa markasta oo magaranaysaayay uu dhawaado xagga Ilaahay laakiin qofku markasta uu soo arko inuu isagu is yahay isagu caafimaadka isku hayo isagu risiqa isu hayo isagu isu hayo nabadda waa markasta uu ka soo fogaado cidii uu baahnayo Ilaahay marka maansadani waxay dul dhigaysaa qofka bini aadanka oo xasuusinaysa adoonnimadiisa markasta adoonnimada la xasuusto markasta rabbaaniyada Ilaahay la xasuusto iyo weynida Ilaahay la xasuusto adoon ereedeedii waxa kamid ahaa rabbow waxaan ahay adoon islaan muslim oo xamdiya arkaantiya tiirarkiyo qiro shahaada falay ku caabuday kali ahaan cid iyo soo marin abaan rabbow waxaan ahay adoon kugu yiri ilaah kalbaan ahay iima badan qof baan ahay eeda badan ilowshuhu way astaan ilduufkuna way aqoon ibba igu taal waswaas ka ula damacayga falan haddaanad ahayn qafuur jaliil dambi dhaafisiin abuur baan noqon adoon khasaariye eeday naar rabbow jannadaada udug indhaan sawirkeeda hayn degaan maqalkeeda kayn afkaar baan lagu cabirin waxaa ku dhex nool ambiyo udgoonow nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam udgoonow nabi maxamed cali iyo abubakar sidiiq ansaartii madiine iyo inaan la jiraan rabaa abubakar iyo sidiiq rabbow hay dhaweyd abaajahal aamin eebow labadii ibilay aabiyo hooyadii idhalay siday amba ii korsheen rabbow adna iigu dhowr adduunyadu waa ifkee rabbow hay oofinuun anoon gudin weli axsaan abaalkay ii galeen inaasaa kamid ahaa maansadii adoon maasha Allah jazakallahu khayr ilaahay ducada wanaagsan Allah inoo aqbalo aamin runtii abwaanadu habaarka ugu dhaca ducada inoo kartaa abwaan waxaan ku jirnay barnaamij dhalinyarta wacyigelin dhalinyarta wacyigelin dhalinyarta ma naga haysa barnaamijyadaadii ama gabayadaadii ama suugaantaadii ay wax kamid ah dhalinyarteedii awoodeedii quwadii dhalinyarnimadu walaal waxay kamid tahay dhalinyaradu waxay kamid waqti la maro oo ma garanaysayay
oo waqtiyada ugu adag qofka la imtixaamo dareenkiisa iyo caqiidadiisa diineed la imtixaamo bay kamid tahay waa ka tiriyay suugaan laakiin suugaan diin xigta ma ka tirin halkana ma ku hayo xasuusteedaan eedaynaya kolka mar dambe iyo barnaamijyo dambe soo qaadan doonaa hadii ay baawo daleedmo جزاك الله خير بارك الله فيك احسن الله اليك الله يحفظك ما سنتاي الى كابال مريم امين الله كقدره الله يسلمك runtii yaxya ilaahay ka abaalmariyo وانا دلير وانا ابوان لكن كستو ابوان جعلاده ابوان مهيبنimo u laga soo baray suugaantu badanka waxay ku xiran tahay qofku bi'ada uu ku nool yahay oo mar waxa la dhaawii daraacayo awoogiyoba aha marna waa hiba keentay baa la yiraahdaa marna waxa la yiraahdaa waa hawle keentay oo watan wade marka shaqada la hayo taydu hiba keentay weeyaan labada midna ma aha kale ilaahay ku barakeeyo barakallahu maxaa loogu daray sadaawiyo waxa ku soo gabagabeynaya in maadaama bil barakeysan ku jirno in aynu ka war hayno waynu soomanahay qofka hadalkii baa laga yareeyay xiriirkii badnaa qayladii iyo buuqii baa la inaga yareeyay qofka binaadamka saddex uu ka kooban yahay waa jid iyo aqli iyo ruux marka bishan waa bilaha laga war hayo qofka ruuxdaada laga war haya maadaama jirkiina cuntadii laga joojiyay aqligiina fikirkii badnaa wixii laga joojiyay ruuxdu ha nasato ruuxdu ha qoodato ruuxda aynu siino waxa ay ku qaniga noqotay hodanka ku noqoto oo ah cibaadada iyo dhikriga eebe kolka intaasaan kula tarinayaa dadweynaha in dhageysanay maanta abwan jazakallahu khayr Allah yaslimik Allah yaslimik Allah ku barakeeyo aad bad maasanta